بسم الله الرحمن الرحيم. قدوميها برلمانك كونفور قلبيد قدومية كحدينك قدية سيد في حلمت خلافاتك اللي ما ندى هي السنة ترى دورا اللي ما ندى هي وزير الدولة قبلت كونفور قلبيد سراكيشة إذا ماذا قرب كسيدو سياسيين تا اللي يرى كواحد كونفور قلبيد صحافة اتكستو مناسبة عن كسو قلب قشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام شرفة يتعي إن عاوة goobjoog ka ahaado xafladan quruxda badan munaasabada ah oo loo dhigay guddigii doorashooyinka oo qaybaha kala duwan ahaa ee koonfur galbeed ka howlgalay uu ugu horeeyo guddiga fiid koonfur galbeed iyo khilaafaadka koonfur galbeed. guddiga siid markii laga tago guddiyada kale labada kale waxay ka mid yihiin guddigii koonfur galbeed waxa ay ka howlgaleen oo ay shaqada ka qabteen waa koonfur galbeed. 3 xubnood oo xalinta khilaafaadka ah oo loo soo xil saaray koonfur galbeed iyo 3 xubnood oo ka tirsan fiid oo iyagana loo soo xil saaray koonfur galbeed. intaba munaasabadan caawa guddigaas oo wada dhan iyo technical teamkii la shaqaynayay oo shaqada la waday yaa caawa munaasabadan iyo xafladan quruxda badan loo sameeyey in lagu sheego shaqadii quruxda badnayd ay qabteen laguna amaalmariyo loona mahadceliyo cid kasta oo ka soo qayb gashay oo ay ugu horeeyaan mirihii ay dhaleen iyo dadaalkii ay bixiyeen dadkii ku soo baxay ayagana waa mahadsan yihiin. intaas kadib runtii waxaa la yidhaahaa maahmaha soomaaliyada waxaa jirta dhahayso haddii lagu sheegana waa la is-shiilaa haddaan lagu sheegina waa la sheegaa. koonfur galbeed iyo guddigooda waxay sameeyeen wax in la sheego laguna faano dadka soomaaliyeed oo dhan ay uga horeeyaan ah iyay sameeyeen. haddii marka dadka soomaaliyeed isma sheegaana ay noo qoori waayeen inayna sheegaan annagaa is sheegayn. marka ugu horeyso waxaan ahayn stateki ugu horeeyey ee dhaqan geliyey heshiiskii 17 September oo baqdinta badan laga qabay oo ahaa in labadii deegaan doorasho la qabto dadka soomaaliyeed oo dhanna ay walaac iyo shaki badan ka qabeen. dadkii xaqiijiyey bilaabay u dhabar adeegay si sharaf leh oo qurux badanna ku soo dhameeyey baa ahayd wax la sheego oo lagu faano wey. baraawa kuraasta ugu badan yaa taallay 26 kursi yaa taallay. deegaan doorashada labaad ay ahayd. dadka soomaalida provocationka iyo propagandka la sheegayay waxyaalaha la rabay in lagu marxabaabiyo dadka ay ka mid ahayd. lama tegi karo, laguma qaban karo, qorshaha loo sameynayaa, gorgor ha la geeyo, haramacad ha la geeyo, dhibaa dhacayo, waxaasaa la dhahayo. waxaa ilaahay mahadiisa ah inaan baraawo maalintii ii doortay ilaa iyo maanta aan taagnaa aana ka warhaayo xogogaalna aan u ah waxa ka jiro nabadeeda iyo xasiloonideeda iyo shacabkeeda wanaagsan iyo waxa ka suurtoobayo intabaan xogaalo. weligay marka ma dhagaysanin aniga oo ku faraxsan oo ku kalsoon yaa waxaan go'aansaday
in deegaan doorashada labaad ay noqoto Baraawe isla markaasna la fuliyey markii Baraawe la aadayo sida uu sheegay gudoomiyaha iyo gudiyada dhan kulli dadka intii hadda la sheegaya laga aaminsanaa laakiin waxaan mar walba u sheegayo adinkoonan waxba raadinin oon ciidan kalena la geynin Baraawe taga waana ka heli doontaan wax badan oo la yaabtaanna waa ku soo arki doontaan taga adiga ma sii tegaysaa ani waa sii tegaya weli waan ka hormaraya waxaan go'aansaday Baraawe inaan tegin sababaha aan u go'aansaday waxay tahay waxaan rabay dadka inaan tuso in guddigii iyo shacabkii iyo odayaashii dhaqankii ay qaban karaan doorashada u xil saarnaa ayadoo uusan madaxweyne daba soconin in dadka Soomaaliyeed ku soo waa la tegay ciidan lama geeynin saraakiisha ciidamada booliiska biliis oray waxaa u jiray koonfur galbeeda iyo ciidan daraawiisho koonfur galbeed oo hore u sameynay yaa meesha joogay oo ka howlgalayay si fiican oo qurux badan lagu tagay si fiican oo nabad ahna waa ku soo dhamaatay waxyaalaha marka aan u baahannahay taariikhda ah oo aan fulinay oo dadka Soomaaliyeed inay sheegaan ay ahayd oo inaan annaga is sheegna ah yaa kooka intaas kadib doorashada saa la socotaan muddo dheer iyay soo qaadatay jadwal badanaa la soo suubiyey muddaa la soo qabtay 20kii bishii horaa la soo qabtay intaa la soo qabtay ugu dambeyn shirkii ugu dambeeyey waxaa lagu heshiiyey 15 Maarch in lagu soo gabagabeeyo waxaan ahayn haddana dowladdii ugu horreysay ee soo gabagabaysay 15 Maarch number 1 ahayd waxaan saacado ka horeynay oo lagu soo xigay Galmudug laakiin annaga ka horeynay waqti maradoonka orodka markii la ordaayo si loo ordaayo qofka ku xiga muhiim ah qofka ugu horeeyo xariga jaro yaa number 1 marka orodka ugu horeeyay annaga xariga jarnay doorashada waa live aan u fiirsanayay labadii markay ahayd soo gabagabowday Galmudugna habeenkii soo gabagabowday marka xariga dadka jaray annaga waa number 1 waxa marka abaalmarinta iyo sharafta iyo karaamada ay koonfur galbeed iyo guddigaanba ay ku leeyihiin waa taas waaye intaas waxaa dheer oo ilaahay mahadiisa ah oo ilaahay ugu mahad celinayaa doorashadaas waqtigeeda aan ku dhamaynay waxaan ahayn haddana state-kii ugu tirada badnaa xildhibaanada 77 xildhibaan oo 69 xildhibaan ee aqalka hoose tahay yaa lagu qabtay koonfur galbeed meesha state-ka ugu badan uu 37 xildhibaan lagu qabtay haddana waxaa ilaahay mahadiisa ah annagii oo la filayay inaan muddo badan ka dambayno inaan muddo badan ka horeyno taas oo ay keenayso shaqo wanaagga midnimada isku xirnaanta daacadnimada hoggaanka suuban iyo wanaagga ay ka shaqeeyeen dadka reer koonfur galbeed ay noo fududaysay inay intaas timaado taasaa ilaahay mahadiisa runtii waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo guddiyadii kala duwanaa oo soo sheegay oo ku ammaananaa hal maalinna sidaa la socotaan dadka waa Soomaali xog iskuma seegano hal maalinna aanan wax khilaafa oo shaqo aan soo dhexmarin oo isku xirnaa sida waajibaadka ay shaqadu u gudanayaan halka guddiyada kale ilaa iyo maanta ugu dambeysay guddiyo la bedelay ayagoo si midaysan isula socda waajibkoodii u gutay kuna faraxsan waxaa intaas sii dheer oo ay ku mahadsan yihiin guddiga nidaamkii iyo habraacii doorashada oo aan ku heshiinay 17 September iyo 27 May hal shay ayadoona laga bedelinay processkii rasmiga ah la maray ee doorashada qabteen 69kii kursiga ma jirto kursi koonfur galbeed lagu doortay oo gacan loo taagay sidii processku waxaa kuraasta koonfur galbeed oo dhan waxaa la mariyey sanduuq yaa lagu doortay habraacii iyo sharciyadii deganaana waa la mariyey intaasba waxaa suurtageliyey guddiga oo waajibaadkoodii oo rasmi ah gutay mahad gooni ah iyo abaalmarin ay ku mudan yihiin waa ku mahadsan yihiin intaas waxaa dheer
qof kasta oo Soomaali ahna uu ogyahay xogta iyo xantaba isku weynooga Soomaalida waa guddiga kaliya oo ka madax bannaanaa corruption oo maanta la sheegi karin qof ama wax raadinayay oo wax helay ama wax waayay ama wax rabay oo si kasta ku raadiyay aanan hal marna wax corruption ku sameeynin musuqmaasuqna aanan gelin laaluushna aanan qaadanin waajibkoodii shaqadoodana ku ekaa yay noqdeen waana ku mahadsanyihiin haddii ay jirto waa joogtaan kuwii la doortay iyo kuwii ayagana doorashada rabayeen u suurtagelinba yaa sheegi lahaa marka waxaa markhaati madoonto ah oo Soomaali oo dhan ay ku sheekaysanaysaa guddi waajibkiisa gutay inuu yahay intaas waxaa dheer sirta guddiga iyo xogta guddiga iyo shaqada guddiga uu leeyahay oo si midaysan ay u qabteen oo maanta qof bini aadan ah oo wax ka sheegi kara aan jirina waxay ku leeyihiin abaalmarin iyo maxay ahayd sharaf gooni ah runtii waxaa weeye qofka bini aadanka markii uu wax qabto oo shaqadii loo qabtay uu guto oo waajibka sidii loogu dhiibay uu guto wuxuu mudan yahay in la yidhaaho waa mahadsan tahay waxaan leenahay guddiyadii koonfur galbeed ka shaqeeyey siday u wada dhan yihiin waa mahadsantihiin waajibkiinana waa gudateen mana aanan inku khasaarin abaalkiinana waa gudi doonaa waxaa tihiin mas-uuliyiin reer koonfur galbeeda waana taariikhda geli doontaan insha allahu waa laynka sheekayn doonaa annaga haddaan nahay dowladda koonfur galbeedna ammaankiina iyo shaqadiina iyo intana ma dayici doonee il gooni ah aan ku fiirin doonaa insha allahu aada iyo aadaan u mahadsantiin intaas kadib runtii taariikhdan quruxda badan iyo wanaaggii ay doorashada noogu dhammaatay iyo habsamadii quruxda badneed ay ku socotay oy koonfur galbeed ugu socotay ama ha noqoto Baraawo ama ha noqoto Baydhabo oo aanan hal marna wax yar ama argagixiso ha noqoto ama khilaaf siyaasadeed ha noqoto ama muran yarna hataa ha noqoto aanan hal marna aanan arkin waxaa mahaddaas iska leh ilaahay baa mahaddaas leh ayadoonaan la wada faraxsan yahay noo dhameeyey waxaa si gooni ah mahaddaas u leh looga mahad celinayaa shacabka reer koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta iyo dowladda oo habeen iyo maalin u taagnaa deganaanshaha iyo xasiloonida koonfur galbeed iyo midnimadeeda ka shaqeynaya kana fikirayay taargetkooda iyo muhiimadooda ay ahayd yaa mas-uul ah oo macquul oo na mateli karo oo koonfur galbeed nagu mateli kara aanan ka fikiraynin yaa kursigaan iskale iyo kursigaana iskale midna aanan laga fikiraynin midnimadii iyo wadajirkii dadkii reer koonfur galbeed ay ku midaysnaayeen inay maanta ay helaan matalaad dhab ah ay helaan siyaasad dhab ah ay ka ficnaadaan dadka Soomaaliyeed ay muujiyaan dimuqraadiyad iyo wanaag iyo dulqaad fuliyey ayaga iyo dhaqankooda odayaashooda dhaqanka iyo dowladooda iyo hay-adahooda amniga intaba waa ku mahadsan yihiin sidii quruxda badnayd oo ay ugu istaageen mas-uuliyaddii cuslayd ee doorashada dadbanayd nin walbaba iyo state kasta loo soo diray in si midnimo aan uga soo baxnay ayagana waa kaga mahad celinaya shacabka reer koonfur galbeed meel walbay joogaan ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka samadoonnada bulshaweynta kale haweenka dhalinyarada kulli waa mahadsan yihiin boqolkiiba boqol mahadsantihiin intaas kadib ciidamada qalabka sida oo habeen iyo maalin u taagnaa inay amniga sugayna ugu horeeyo ciidanka SNA oo bannaanka u baxay xaqiijiyeyna inay dadka Baydhabo joogo oo kaambeynkii ololaha ku jiro oo xildhibaan raadinta ku jiro oo waqti dambe socdo oo habeen iyo maalin taagan go'aansaday inaanan loogu imaanin magaalada oo bannaanka difaaca uga jiray ciidanka bariiska koonfur galbeed oo ayagana habeen iyo maalin u taagnaa
amniga nabadda iyo nabadgelyada magaalada baydhabo gudaheeda iyo 27 rugood oo magaalada baydhabo ku wareegsan inaanan wax yarna aysan ka dhicin iyo hay'adda nabad sugidda ciidamada nabad sugidda qaranka iyo ciidamada daraawiishta koonfur galbeed aad iyo aad ay ayagana u mahadsan yihiin dadaalkii ay muujiyeen iyo sugistii amniga ay ka shaqeeyeen iyo sidii quruxda badneed ee doorashada noogu dhammaatay ayadoo aanan hal qof beentii iyo argagixisadii ay sheegaysay oo ahay doorashada hadday dhacdo dhib baan suubinaynaa waxbaan yeelaynaadi ilaahay baa mahad iskale naga badbaadiyey ka sokow mas-uuliyadda ay qaadeen ciidamada qalabka sida oo habeen imaan u taagnaayeen yaa mahaddaas isaga leh ayagana aada iyo aada ay u mahadsan yihiin meel walba ay joogaan ciidamada qalabka sida intaas kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo saxaafadda meediyaha koonfur galbeed iyo dadka dhalinyarada ah ee reer koonfur galbeed ee social mediaha ku jiro meel walba ay joogaan gudaha iyo dibaddaba oo iyagana taageero iyo deganaansho iyo wixii wanaagsanaa oo la suubiyey si rasmi a u tabinayay ayagana aada iyo aada ay u mahadsan yihiin intaas kadib mahad celin guud ahaan ummadda koonfur galbeed oo dhan intaasay nooga eg tahay intaas kadib runtii doorashadii waa dhammaatay caawa waxaan u joogno waa xafladdii aan ugu talagalnay guddigii doorashadii hay-adaha amniga inaan ku abaalmarino uguna mahad celino hadday doorasho noo dhammaato xafladdan wixii ka dambeeyo waxaa loo gudbi doonaa waajibaadkii annagana saarnaa iyo mas-uuliyaddii koonfur galbeed iyo guddigii doorashooyinka saarnaa waa soo dhammaatay waana gudanay ilaahay baana na waafajiyey siday ahaydaana ku gudanay annaga oo kaashanayno shacabweynaha koonfur galbeed iyo odayaasha dhaqanka iyo dadka kuraastan xildhibaanada iska lahaa oo si mas-uuliyad ku jirto u soo saartay dadka ay ayga rabeen annaga waajibka annagii waa gudanay waxa haray waxaa waaye xildhibaanadii federaalka ahaa ee lasoo doortay oo doorashadoodii soo gabagabowday ayagana waajibkoodii dastuuriga ahaa inay gutaan waa dardaarmi doonaa munaasabad sagootin ah oo lagu sagootinayo xildhibaanada iyaan sida ugu dhaqsaha badan u samayn doonaa howl adag baa idiin taallo oo laidinka sugaayo doorashada sidii horey looga sheekeeyey wakti badan bay soo qaadatay ma rabno inuu wakti dambe sii dhumo ma rabno in mar dambe erey iyo isfiirfiirin iyo maxaa inta loo istaagay dambe ay timaado waxaan rabnaa iyadoo la maraayo sidii habraacyadii rasmiga ahaa ee doorashooyinka lagu maamulayay iyo broseskii dastuuriga ahaa in sida ugu dhaqsaha badan aada waajibaadkiina u gudataan shahaadooyinkiinana u qaadataan doorashooyinkii idin sugaayana aada u gashaan oo aada u doorataan guddoonkii baarlamaanka iyo tii madaxweynaha annagu wax nagu haray male waana ku faraxsannahay inay shaqadaanadi noo soo dhammaato intaas kadib xildhibaanada koonfur galbeed laga doortay waa 77 xildhibaan 8 sanatar iyo 69 xildhibaan waxaa noogu muhiimsan oon koonfur galbeed rabno waxay tahay midnimo inaan muujisaan 77 xildhibaan maanta state haysta male laba state la isku daray baa 77 xildhibaan haysta waxaan rabnaa awoodda iyo quwadda iyo tirada intaas la eg waxtarkeeda inay koonfur galbeed laga arko ka muuqato waxaan rabnaa inaadan la kala qaybinin noocyada kala duwan ee bulshada loo kala qaybin jiray aanan la idin kala qaybinin sumadiinna iyo magaciinna inuu ahaado koonfur galbeed waxaan soomaalinimo ahayn aanna ka shaqaynin koonfur galbeedna u shaqaysaan insha allah haddii midnimadaas la helo iyo wadajirkiinaas la helo waxaa laga arki doonaa koonfur galbeed
haddii laakiin ay noqoto ninkii dhihi jiray waarkii la sumaday oo kale nin walba uu hortiis u ordo waxaa weeye waa khasaare labaaday nagu noqonaysaa. marka ilaahay dadaalka annaga iyo shaqadii iyo juhdigii dadka reer koonfur galbeed ay bixiyeen shacab iyo odaybo ilaahay naguma khasaarin. kuwii dalkooda iyo dadkooda iyo deegaankooda ka fikiro oo si soomaalinimaa uga fikiro oo talada stateka iyo waxtarkiisa iyo horumarkiisa ku shaqeeyana allah idinka dhigo. runtii saan hore u sheegay munaasabad kaloo gooni ah oo sida ugu dhaqsaa badana yaan oo dardaaran iyo sagootin aan xildhibaanada 77 xildhibaana u samaynayno iyo inta ka joogtaba yaan samayn doonaa. markaasaan si fiican u dardaarmi doonaa haddii ilaaha yihaaho. intii hadda kasoo qayb gashana waa mahadsan yihiin. runtii dadka ninka maanta wixii uu rabay oo dhan gacantiisa ka baxay siduu maalin balid u siibanayay aniga waaye oo koonfur galbeed kusoo haray. maalin walba usu mid iigu tagaayay oo maalinba mid iiga tagaayay oo maalinba mid iiga tagaayay. maalinta ugu dambeysaa waxaa iga tegay wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka amniga, guddoomiyihii gobolka yaa hal mar siibtay. marka koonfur galbeed dadka shacabka reer koonfur galbeed way fiiriyeen iyo odayaasha dhaqankaba waxay yidhaaheen dad la soo tijaabiyey oo koonfur galbeed lagu tijaabiyey oo waxtarkooda la arkay oo horumarkooda la arkay xagga ha loo dirsado. anna marka ii soo duceeyey kuwo kaloo ii kiin bedelo oo adinka inkaga kiin fiicnaado inuu ilaahay ii bixiyo. adinkana dee sida la idiin soo qooriyey guddoomiyaha baarlamaanka ugu weyn shaqo xoog baa noo taalla inaan buuxino la rabo. taliya ma sahlano taliya ciirow oo jenaraal ciirow waa naga tegey. dad badanaa baxay. marka insha allahu dadka reer koonfur galbeed waa badan yihiin kuwo kaloo badan oo fiican oo boosaskaas buuxiyo oo adinkoo kale iyo ka fiican shaqadeedana qabtana waa heli doonaa. aad iyo aad iyo aada u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.